Waxaan halkan fariin uga dirayaa aabayaasha carruurtooda dayacay. Waxay u dayaceen carruurtooda. Gabadhii carruurta u dhashay ayay kala tageen ama kala fogaadeen, sidaa darteed carruurtii uu dhalay ayuu dayacay. Aabbo, adigan kula hadlayaa. Carruurtaada, wiilkaaga ama gabadhaada aysan noqon kuwa ugu nasiibka xun dunida. Haddii marba adiga aad aabbo u tahay, waxaa la rabaa in ay noqdaan kuwa dunida ugu nasiibka badan. Carruurtaada ha dayacin. Carruurtaada, wiilkaaga ama gabadhaada adigoo nool yaan loogu yeerin agoontii aabbahood noolaa. Wax fiican ma aha carruurtii sababtaada ku yimid dunidan inaad dayacdo. U dhabar adeeg sidii carruurtaada ay ku heli lahaayeen hooy wanaagsan, diin, akhlaaq, cunno fiican iyo sidoo kale tarbiyo wanaagsan oo islaami ah. Aabbo, ma qurux badna in carruurtaada loogu yeero agoontii aabbahood noolaa yaa halkan joogaan. Waayo carruur aabbahood aan ka warhaynin waa agoon. Maalinka qiyaamo waxaa lagu weydiin doonaa waxa ugu horeeyo waa wax mas'uuliyadda lagaaga dhigay oo ugu horeyso carruurta adiga sababtaada ku yimid dunidan. Gabadhii carruurta kuu dhashay oo aad isku xumaateen ama aad kala fogaateen, waajibaad adiga ku saaran ha u dayacin. Inkastoo aysan wanaagsaneen in aad cuqdad caloosha ugu qaado qof aad nolol wadaagteen, haddana ma qurux badna carruurtaada inaad sababtaas u dayacdo. Sabab kastaba ha noqotee carruurtaada ka warqab aabbo.